kulan wacan daawada subax wanaagsan meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadana kale waxa idin soo gudbinaa saakay tool maxaa laga qoraarmaha Bollywoodka kuwaas oo sidii karna xiiso way leeyihiin oo daawadayaashina wad la wadaagi kartiin waaga daawada waxaan ku bilaabi doonaa Salmaan Khan oo ka tacsiyeeyay dhimashada ku timid Bajrangi Bhaijaan wiilka sameeyay body double-ka ama qof waxaa jirta filmaanta loo sameeyay double body oo jilaaga kala mararka qaar actionada uusan sameey karin qof kale isku jir eegyihiin body double la uu sameeyo kaas oo lagu magacaabo Sakar Bande kaas oo dhintay asagoo xilli uu ku jiray goobta gym-ka aaba xidiga Salmaan Khan ayaa waxa uu ka tacsiyeeyay geerida ku timid Sakar Bande kaas oo dhawaan dhintay kadib markii uu istaagay wadnaha xidiga social media waxa uu soo dhigay sawirkiisa kaas oo ku sugan yihiin goobta Bajrangi Bhaijaan lagu duubay asagoo sidoo kale xidigaas uu tacsiyo ugu daraba Salmaan Khan ayaa waxa uu soo dhigay Instagram-ka asagoo sheegay in uu xidigaas uu kala soo muuqday filmo gaaraya ilaa 50 film waxaana kamid ah filmkaasi Bajrangi Bhaijaan kaas oo sidoo kale sawirkiisa uu ku soo qorqoray RIP oo rest in peace ama nabad ku joog taas oo sidoo kale Salmaan Khan uu mahad celiyay in uu filmadiisa oo qayb ka ahaaba Barasand Walde kaas oo sidoo kale ah qofka sameeya actionada xidiga kale Shahrukh Khan oo ka riwaayo ayaa wuxuu jimcada xaqiijiyay in Bande uu dhintay sidoo kale wuxuu sheegay in Sakar xilli uu sameeyay gym uu hal mar uu dhacay sidoo kale isbitaalka la carray taas ugu dambeyn la sheegay in Mumbai uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala Barasanti ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka naxin dhimashada ku timaaday in sidoo kale uu ahaa qof caafimaad qaba oo aan laga filin karin in xilligan uu dhinto sidoo sheegay waxaana daadiisa lagu qiyaasay 45 ilaa 50 sano jir markaan fiirinayo shaqada Salmaan Khan waxa uu dib ugu soo laabtay barnaamijyada ka baxay TV-ga kaas oo shalay toolo bishii October koodeeda uu ku soo bilaabay barnaamijka Big Boss kaas oo sidoo kale lagu arki doono filmkiisa ee dabaaqada sanadkan la daawan doono Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan waxaana sidoo kale xigi doona filmkiisa kale Tiger 3 kaas oo la daawan doono 2023 Abriil kaas oo xilli iida lagu aadin doono waaga daawada dhinaca kale waxaan eegi doonaa xidigta Rashmika Mandanna ayaa waxay ka hadashay sida doorka nolosheeda ugu lahaa filmka Pushpa iyo sidoo kale uu u bedel xirfadeeda magacana uu ugu yeelay filmkaasi Rashmika Mandanna ay haatan waxay ku mashquulsan tahay xayeysiin u sameynta filmka soo socda Goodbye taas oo xidigtaas ay la wado xidiga Amitabh Bachchan sidoo kalena xidigta kale Neeta Gupta iyo sidoo kale xidigtan ay tahay mid magac sare ka sameysay qaybta Telugu film industry Pushpa The Race ayaa waxay xidigtan ahayd mid ay ku soo caanbaxday sidoo kale waxay caan ku noqotay heesta filmkaas ku jirta ee Sami taas oo keentay mid xidigta laga aqbalaba guud ahaanba India xidigta ayaa wareysi gaar ah siisay Bollywood Hangama waxay ka hadashay filmkaasi doorkeeda xirfadeeda kor u qaaday waxaana sheegtay in filmkoodu koowaad ah Critic Party kaas oo filmka ku soo caanbaxday oo film reer Canada oo ahaa sidoo kale waxa uu xig filmka Geeta Govindam kaas oo sidoo kale sheegtay in qof walba indhaheeda ku soo jiidatay sidoo kalena bandhigeeda filmkaasi la amaanay waxaan sidoo kale raacisay in Pushpa uu ahaa mid bedelaba gabi ahaanba xidigta ahaan sidoo kalena waxyaabaha laga aaminsan yahay ee gudaha Hindiya oo idil xidigta waxay sheegtay in marnaba aysan isku arkeenin actress sidoo kalena ay sheegtay in xidig ay wali taamid ugu halgamayso sidoo kalena ay rabto in ay soo saarto nafsad ahaanteeda waxaan sheegtay ahaanteedaba in aan ahay ay sheegtay public figure in wali ay tahay waxyaabo wax un ka harsan sidoo kale xidigta intaas waxay ku dartay in guusha filmka Pushpa The Race uu yahay mid la filin karo sidoo kale waxay sheegtay in si ogaayeen in filmkaas uu noqon doono film wanaagsan sidoo kale waxay sheegtay inaas manaba ay ka filayeen waxyaabaha filmkaas oo la soo baxay sidoo kale waxay intaas raacisay in ka warqabeen in filmkaas uu yahay film xaq walba ka dhameystiran sidoo kalena ogaayeenba in filmkaas uu noqon doono mid qaab positive loo faransiin karo ama si guud ah filmkaas uu noqon doono film qof walba ka yeelsi kara wow sida xidigtu sheegtay xidigtan filmka soo socda ee Goodbye ayaa waxa maalgeliyay ka Ekta Kapoor shabakada ee Balaji Motion Picture iyo sidoo kale la shaqeynayso Good Company Goodbye waxa lagu wadaa in la daawado October 7deeda ee Jimcaha soo socota 2022 inta aan ku soo xirnaa daawada saakita waxyaabaha laga qoro Bollywoodka kuwaas oo aan sidii kana xiis way lahayn daawadaashin waa la wadaagi kartaan hadaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada waad ku maasintiin alaaba sidaad muuqaaladeena aad u daawataan